waxaan bilaabay in aan la xiriiro adeerkay. waxaan dhowr goor u diray taleefon ilaa aan ku guulaysto inuu iga qabto. salaan kadib waxaan ku idhi, adeer, dugsigii sare waan dhammeeyey, jaamacaddana nasiib uma helin. waxaan ahay makaanig iyo darawal noocyada kala duwan ee baabuurta. waxaan jeclaan lahaa in aad i garab qabato, aadna ii raadiso sharci aan qadar ku imaado iyo shaqo. adeer wuxuu ahaa mid qoyskeenna ka warqaba, isla markaana wuxuu noo soo diri jiray biilka iyo wixii meertada nolosheenna ahba. laakiin aniga shakhsiyan maanta ka hor si gaar ah marna waxba uma weydiisan, mana jeclayn in aan sidaas sameeyo, oo waan ka xishoonayay. laakiin nimuu caashaq wareemay, wadnihiisu haleelay inuu waayo fiican helaa. warma haddii loo haystana marna ka waaban maayo. waxaa ii muuqday in aan qaado horyaalka caashaqa. adeer ayaa ii muujiyey dareen aad u wanaagsan, asagoo igu yidhi, waxaad tahay nin wanaagsan oo ku kalsoon dadnimadiisa. qof walba oo ila soo hadla wuxuu i weyddiistaa oo keliya in aan jeebta gacanta u geliyo. laakiin waxaad tahay nin han leh, waxaana kaa ballanqaadayaa in aan kuu fuliyo rabitaankaaga. si weyn ayaan ugu farxay natiijada aan adeerkay kala kulmay, waana u mahadceliyey. keligaa waalo wareer waaye, isla waashana waajib waaye. wakhti walba waxaan ku hamin jiray in aan arko raxma, oo aan dareemayey in ay tahay indhahayga nuurkooda. dhagahaygu waxay macaynsan jireen codka naxariista badan. haddaan qof la sheekaysanayo, waxaan nici jiray in aan ka hadlo wax aan ku saabsanayn raxma. arrintaasi waxay iga dhex saartay bulshada, marka laga reebo saaxiibkay Faarax oo ii badin jiray ka sheekaynta raxma, isagoo aad u fahamsanaa xilka guudka ka saaran. aniguna erayada afkiisa ka soo baxay waxaan u dareemi jiray murti malabka ka macaan. dhagahayguna kama aysan caajisi jirin hadalkiisa. waxaan dareemi jiray in aan la joogo raxma, oo aan kala kulmayo hadallo jacayl oo irmaan ah. markaan keligay noqdana waxaan nafta ugu raaxayn jiray anigoo ka soo laabtay qadar raxma la i guddoonsiiyey. habeenkii aqalgalkeenna xaflad qurux badan oo aan mar walba qalbigayga ka sawiran jiray. farxad badan ayaan dhex geli jiray, waxaana riyada soo jeedda ku qorshaysan jiray raxma ubad ii dhashay, ayadoo ilmihii ku leh u tag aabbaha, iyo anigiyo ka guddoomayo oo shafkayga saarayo, sankana la raacayo awlaad jacaylkaygii ii dhashay. mar dambe ayaan ku baraarugaa inay ahayd waayaha aan dhex dabaalanayay riyada soo jeedda, laakiin aanan waxba gacanta ku haynin. kadib ayaa waxaa ii bilaabmi jiray walwalka caashaqa ee keligaa waalo. ileen raxma xaaladdayda waxba kama ogeen. waxaa i soo garaacay adeerkay oo aan ka sugayey hawshii aan u dirsaday, wuxuuna iigu hambalyeeyey in uu gacanta ku soo dhigay ciqaamaddii aan ku degi lahaa, isla markaana aan uga shaqaysan lahaa qadar.